رمال محمد وإذن سلامي أنت وناكسن وعواني وصومالي أنا وانك يابنها والله بالله تلا أدب أو يابنها وحاوا عوان دي أنا وصو بالنص حولي أنا وصو بدنا وحما قرط دي أنا وصو بدنا يسو dadka aqliga la ayaan ugu soo badanayaan waxa way xaasidkan ugu soo badanayo dhaankii namiimkii dadkii isku diraayaan ugu soo badanayo wallahi billahi taala aad waxa ugu xumaayay boqolkiiba boqol Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kullu cuntada markii soo dunida Afrika joogtaan markii muuqaal soo dhawaad saaxiibayaal markii ugu horeysay soo martaan dadka waxaan ka codsanay muuqaalkan horta muuqaalka marka muuqaal dareen la ka hadlaysid oo taawar muuqaalka Soomaaliya sahla yar ma yeelan waqti Soomaalida dadkay taawada marka aad maasantiin kusoo dhawaada muuqaalkan baynu saaxiibayaal doonayna wada falqeyno waxba la saarin waxba soo iskaraab saar waxba soo falo gareeyay wad maasan tahay inuu walaashino la xumeeyay doonay saaxiibayaal dareenka yaartay inaan kaliibto hadda dareenka yaartay la wadaag waa maasantii saaxiibayaal adna qasbadi ku balaa laakiin wax ogahay gmail-ka aad subscribe igu saarayso iyo page-ka ama Facebook-ka aad magaranaysaa igu soo falo gareynayso ama like aad igu siinayso inta weynaa lacag ugu joogin ay bilaash ku geeshin kaliya daatada aad ugu daawanayso in lacagta marka daatada aad ku soo shubatay ama waa la iska isticmaalayso lacag ka bixisay waa kugu mahad celinaya waana maasan tahay muuqaalkan waxa ka codsanay inaad hal comment ka soo bixin in muuqaalkan zero like noqdo hal like xitaa inaad saarin ka codsanay because Soomaaliin badan baa dadkay daawada ruuxa like saara ruuxa subscribe saara way diidan moogtahay ana san dhiirigelinta wasi qaado magaranayay muuqaalo badan u soo gudbiyo kadibna waa diidan soo maaha ana waa diidan waxay saarin muuqaalka iska daawada kadibna iska baxa saaxiibayaal thank you muuqaalkan oo marimaanka ka soo hadashay walaashin magaranaysaa inantii walaashin la xumeeyay ama faadmo ama fahimi hadba soo taqaanaan oo magaranaysaa marimaan kula qeyrootay iyo sidoo kale xog rasmi oo sheegay gacanta lagu soo dhigay ninkii magaranaysaa inanta farxumeeyay iyo sidoo kale wiil yaro oo magaranaysaa ay wuxuu tahay inaan lagu macawirtaasho baraha bulshada caanka ah isaguna TikToker oo si toos ah ugu weeraray gurigiisa magaranaysaa ninkii inanta farxumeeyay saddex muuqaal ma saaxiibayaal doonayaan inaan idin la wadaago soo bandhigo ee soo dhawaada muuqaalka daawada kadibna wad mahadsantiin السلام عليكم طبعا يا تيك توك فان ولا فرق ما قلنا الله نيك ولا شيء فيه مفرحمي غوريغيسا جوغا ماشي او بلايدي بختي ku caawin waalay qanaan faateen 24 saac gudahood daluuso qowa social media lurkeen way ana social media iskaga tagaa nacalay basrad ku shabo okay wiilkan dhalinyarada waxa uu sheegay inuu si toos ah u garanayo guriga oo ninkan dhalinyarada ku sugan yahay oo magarasa dadka social media isticmaala way soo yaqaanaan moogta qof kasta oo yaqaan ba social media isticmaala dhamaan ba asxaabta reerkiisa way yaqaan guriga hal ku yaalo way iman karaan way la soo hadli karaan moogtahay horena waa lagu kulmi jiray ninkan dhalinyarada inantan baraha bulshada isticmaalaysay badanaa dadka baraha bulshada isticmaala dad badan oo waxa iska jira iska jiitoono magaranaysa iska soo bixin meel ay joogaan moogtahay marka maadaama la garanayo waday gacanta lagu soo dhigo aad bay muhiim u tahay soo maaha bal saaxiibayaal sidoo kale waxaan doonayaa Sharma Boy isaguna arrinka ka hadlay bal isagana inaan wada daawanaan yar رمال محمد وإذن سلامي أنت وناكسن وعواني وصومالي أنا وانك يابنها والله بالله تلا أدب أو يابنها وحاوا عوان دي أنا وصو بالنص حولي أنا وصو بدنا وحما قرط دي أنا وصو بدنا يسو dadka aqliga la ayaan ugu soo badanayaan waxa way xaasidkan ugu soo badanayo dhaankii namiimkii dadkii isku diraayaan ugu soo badanayo wallahi billahi taala aad waxa ugu xumaayay boqolkiiba boqol ya saaxiibayaal ninka isaga insha Allah billahi kari waxa rajeynaya in halkan hortiina la keeni doono isagoo inta muuqaalada ku duubay isagana muuqaal loo duubay oo loo dhibaateynayo in hortiina la soo istaajin doono aad baad maasantii saaxiibayaal muuqaalka ma si dheeraniyo intaas aan ku soo koobayaa bye bye.